waxaan rabnaa halkan inaanu warbaahinta ku wargelino in shirkii guddiga farsamo ee ka soo baaraandegayay soo dhameystirayay arrimaha doorashooyinka iyadoo laga duulayay heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxda qaranku saxeexeen inaanu maanta ka furanay magaalada Baydhabo saacadu markay ahayd 5tii galabnimo. shirka markaanu furanay ka bacdi isla markiiba waxaa talooyin iyo nagu soo biiray oo xagga fogaal arag kamarada nagaga soo biiray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaadka looga fadhiyo iyo arrimaha loo baahan yahay xal laga gaaro. inta ka bacdi shaqadayda baan sii wadanay qodobadii saddexda ahaa ee la isla ogaa baanu ka baaraandegaynay hawshana si wanaagsan ayay hadda noogu socotaa. waxa iyana kale xusid mudan in madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen uu halkan noogu yimi isna uu dardaaran iyo hoggaan tusaaleyn iyo intii uu soo joogay arrimaha wada xaajoodka xagga sare markay noqoto madasha wada tashiga ayuuna la wadaagay inihii aanu fadhinayna hanaan aanu ku wada shaqeyno iyo qiyamkii baanu isla meel dhignay. hawshana ilaa hadda si habsami leh way noogu socotaa. guddoon iyo guddi baanu yeelanay si wada ogola oo isu tanaasul ku dhisan ayaanu go'aamadan u gaaraynaa. shaqaduna ilaa hadda si wada jira baan u wada wadnaa. waxaanuna ku rajo weynahay in caawa ilaa ka wada inaanu shaqeynaan rabnaa iyo biriba inay awshu intay naga soo dhamaato insha Allah ta'ala dalkani uu doorasho wanaagsan oo si nabada ku dhacda oo sunnihii hore ee jiri jiray aynu sii marno saasaan ku rajo weynahay. waxaanu aad ugu mahad celinaynaa wasiirada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka Koonfur Galbeed oo ilaa markii aanu ilaa iyo hadda soo dhaweyn iyo adeeg iyo mataqaanaa nala garab taagnaa. waa mahadsantiin dhammaantiin. guul baan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed.